waxaa jiray laba nin oo walaala ahaa baa jiray. midna waa shaqo tegi jiro waa soo shaqayn jiray, midna nebiga sala allahu alayh wasalam buu u iman jiray oo cilmiga ka baran jiray. markii dambe waxa dhacday kii shaqo tegi jiray ayaa markaa wuxuu yidhi ninkani mar walba aduunbuu dee kuu imanayaa, ma shaqo tegaayo, ma foofayo, anuunbuu wax iga sugayaa, waxaan anigu soo shaqeeyuunbuu ila cunayaaye nin shaqo tegayo wax shaqaa qabanaya ma aha. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, lacallaka turzaqu bihi, waxaa laga yaabaa in isaga lagugu arsaaqayo, yacnii cilmigaa u baranaayo aawadii in lagugu arsaaqayaa laga yaabaa, oo waxa aad soo helaysaaba isagu sabab u yahay. xadiiskaasina waa xadiis saabita weeye. axaadiis kaloo la macnina waa jirtaa, sida xadiiska nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wahal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum, oo miyaa laydinku arsaaqayaa oo laydinku gargaarayaa kuwiinna taagta daran sababtooda mooye, ma wax kalaa laydinku arsaaqayaa ama laydinku hiilinayaa, nasriga laydinku siinaya. sacd ibnu abi waqaas baa wuxuu u arkay cid uu ka mudan yahay inuu fadli ka leeyahay, dadka qaarkood inuu fadli ka leeyahoo ka mudan yahay oo ka awood badan yahay, oo waxau isagu qaban karo aynay qaban karin, qaarkood dacafo ay yihiin. sidaasuu markaa u arkay. markaasaa nebigu sidaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, kuwa ducafada ah sababtooda laydinku arsaaqayaa, nasrigana laydinku siinaya. bukhaari iyo muslim baa soo wariyey. riwaayo kaloo xadiiska ka midoo caddaynaysa waxay sheegaysaa, waxaa laydinku arsaaqayaa oo laydinku gargaarayaa bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim, ducada dadka ducafada ah ee taagta daran iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda ilaahay ay u saafi yeelayaan niyada, taas baa laydinku gargaaraya, laydinku arsaaqaya. marka waxaa laga qaadanayaa inaan lays odhanuun ciddii waxaweeye shaqaynaysa xoog badan ee dadaalaysa ee waxaweeye tacabka samaynaysa, yacnii sababta tacabkuunbaa markaa xoolaha lagu helay yaan lays odhan. waxaa laga yaabaa dad marka ama dacafo ah ama aan shaqaysanayn ama cibaado ku mashquulsan ama cilmi ku mashquulsan amaba taag daran oo waxaweeye markaa daciifya ah, sababtooda in lagu arsaaqayo, risiqa loogu soo dhiibayo. isagii suurad ahaan ha shaqeeyo, laakiin marka waxaweeye xoolahan loo soo dhiibayaa sabab bay leeyihiin. sababta marka ay leeyihiin waxaa laga yaabaa dadka dacafada ducadooda iyo ikhlaaskooda yacni markaa aawadeed markaa barakadooda inuu risqaba ku helayo ayaa markaa laga yaabaa, sida xadiisku sheegaayo.